بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel walbo aad dunida ka joogtaan maalin wanaagsan habeen wanaagsan kusoo dhawaada goosaar graphics iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sidee sawirada banikalka loogu bedelaa sawir dhameystiran si aad u daawato waqti walba muuqaaladeena oo isdaba joog ah fadlan subscribe garee channelkeena gabalka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalkeena like muuqaalka haddii aad ka heshay lana wadaag saaxiibadaada jecel inay ka faa'iidaystaan la socod wanaagsan muuqaalkii oo dhameystiran waxaan hadda guda galaynaa cashirkeena maanta waxaan doonaynaa inaan ku faa'iideyno sida sawir banikal ah loogu bedelo sawir dhameystiran waxaan soo kacsanaynaa Adobe Photoshop keena intaan guda galin waxaan tagaynaa sawirada banikalka meesha ay yaalaan oo marka hore mobilkayga aan kusoo sawiray waxaan tagayaa folderka oo yaalo waa kana marka waxaan rabaa inaad soo furto waxaan leeyahay open kadib Photoshop Adobe waxaan isticmaalayaa CC 2018 markaasaan ugu dhufatid wuxuu ku keenayaa workplace-ka ku shaqeynaysid ku keenayaa kadib waxaad dooranaysaa crop tool oo loogu talagalay inaad ku dooratid size-ka sawirka ama documentiga intaad ka isticmaali lahayd marka la soo dooratid ama inta aad rabtid markaad dooratid waxaa sameynaysaa calaamadan yar tigta ku dhufanaysaa taasi oo kaaga dhigan inaad dooratid wax yar okay marka meeshan aad taagan tahay wax yar siska aan toosiyable markaan meeshan aad taaganahay tilaabada ugu horeysa qaad waxay tahay sawirka soo gashatay dan sawirka siiska ugu macquulsan ama ugu saxsana ayaad dooratay dan waxaa sameynaysaa waxaa leedahay waxaad ka qaadaysaa qofulkan waxaa ka qaadaysaa sawirka backgroundkiisa kadib waxaa leedahay control I markaa dhahdid sawirka isbedel ayaa ka muuqanaya laakiin weli waxaa ku jiro muuqaal shuca ah hadda saan idin tuso control Z ayaan dhahay sawirka ujeedaan qofka wajigiisa lama aqoonsan karo laakiin markaan control I dhaho qofka sawirka wajigiisa waa la aqoonsan karaa haddii uu yahay qof aad hore u taqaanay dabcan intaan haddaad la socotid muuqaalka waa sii dhameysan kartaa si hadda muuqaalka waxaad uga fahantid muuqaalka dhameystiro markaan meesha taaganahay waxaan dooranaynaa toolkan yar oo loo yaqaano create new layerska ama adjustment new layerka dooranaynaa kadib waxaa kasii dooranaysaa curveskan markaan meeshan aad taagan tahay waxaad dooranaysaa iconkan yar oo simple image sector oo lagu doorto bontiga qofka wajigiisa ama sawirka lagu doorto colorka lagu doorto ayaad dooranaysaa marka waxaan raadinaynaa meel yar oo sawirka iftiin aan ugu soo doorno maadaama sawirka uu yahay mid mugdi ku jiro ama shucaca ku jiro okay markaan meeshan taagan tahay sawirka xoogaa iftiin oo leeyahay iftiinkaana marka xoogaa edit garanaynaa okay markaan meeshan taaganahay xoogaa sawirkii hadda iftiin oo leeyahay waxaa leedahay control B oo cafan aan doorano sawirka waxaa leedahay control B marka control B dhahdid sawirka wuxuu hadda noqonayaa sheekeen ama usoo sameysanaysaa color balance saad sawirka color ugu soo dartid marka hore waxaad buuxinaysaa godadkan oo inta number ee adiga ah jeceshaha ka dhiganaysaa marka hore waxaan wax ka bedelaynaa redka ama gaduudka anakoo ka dhiganaynaa inta nala macquulsan ama sawirka uu kusoo bixi karo adiga ilaa 45 64 inta adiga aad dooratid ay ku xiran tahay okay aniga waxaa ka dhigay 64 okay 64 aan ka dhigay midkan greenkan u maana ama cagaarka asigana waxaa ku daraa midkaan bluegaadan u maanaynaa asina color waxaa ku dareynaa okay hadda sawirka sidii hore ma ahan iftiin wuu leeyahay muuqaalkan oo xoogaa qofka wajigiisa si fiican loo aqoonsan karaa waxaa ku dhufanaynaa okay marka hadda meeshaan aad taagannahay sawirka wajigiisa waa la aqoonsan karaa laakiin weli waxaa ku jiro shuca iyo maadaama sawirka sawir muddo meel u yaalo yahay ama banikalka
mid gacmo badan tataabto yahay waxaa laga yaabaa inuu sawirka kalarkiisa kalar ahayn oo ku daray ama effect oo gooni ah inuu ama additional ah ee sawirka ugu timid. sidaas darteed waxaan sameynaynaa, waxaan soo qaadanaynaa toolkan oo loo yaqaano blur tool oo loogu talagalay in sawirka shucaaca looga saaro. zoom aan leenahay si xoogaa si fiican sawirka noogu soo muuqdo. okay, marka waad ku tirtireysaa ilaa aad sawirka meelaha shucaaca ah haddaba inaad ila aragtaan ama dareemi kartaan sawirka meel walba oo isdheedid xoogaa wejiga kalarka saxda ah ma ahan waad ku isticmaali kartaa. okay, marka hadda meeshan aad taagan tahay sawirka waxaan u maleynayaa xoogaa inuu sidii hore ka duwan yahay. waxaad dooranaysaa qaybtan image-ka, waxaa leedahay adjustment, waxaa ka dooranaysaa color saturation-ka dooranaysaa xoogaa colorka waxa ku daray. okay, mar labaad waxaa ku laabanaysaa image-ka, dooranaysaa adjustment-ga, waxaa leedahay fahrenheit-kana dooranaysaa colorka xoogaa dabcan hadda boqolkiiba 90 sidii hore uu ka duwan yahay. marka waxaa soo dooranaysaa toolkan yar oo loogu magacaabo spot healing brush tool. waxaa lagu talagalay waxyaalaha wasaqda ama dheeraadka ama wejiga uusan lahayn inaad uga saartid. okay, meelo waxaa jiraan oo cadaad ah marka ama meelo fin oo kale ama nabarad oo kale ama daqarad oo kale ayaa wejiga looga simaa. okay, si fiican hadda aan fiirinin bal sawirka. okay, hadda sawirka waxa waaye waa sawir old ah. waxaan rabnaa inaan ka bedelno background-ka, sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka bedelno dareeska oo xiran yahay ama suud ama wax inaan u gelino. marka ila socda saan u sameynayno. fadlan haddii muuqaalkan ku caawiyay ama ku caawiyo like ree asxaabtaada ula wadaag, share u dheh, channelkana subscribe saar si aad mar walba u noqoto saaxiibada ugu dhow channelka muuqaaladii aad heshid. waxaan rabnaa hadda inaan ka bedelno background-ka. waxaa soo dooranaysaa midkan oo lens tool-ka loo yaqaano, ama waxaad dooran kartaa cafan midkan ayaad dooranaysaa oo biological lens tool-ka loo yaqaano dooranaysaa, ama waxaad dooran kartaa pen tool-kan. aan inta badan waxaan isticmaalaa pen tool-ka. adina waa midka aad isticmaali kartaa. pen tool-ka waa uu ka fudud yahay oo waa ka maareyn kartaa. okay, markii la socda zoom si fiican u dhehaysaa maadaama background-ki iyo waxaa isa saaran sawirka. marka waxaa laga yaabaa qayb ka mid ah background inaad soo qaadatid, ama waxaa laga yaabaa sawirka qayb ka mid ah inaad ka tagtid. marka saas kugu dhicin waxaad dooranaysaa zoom si fiican usoo leedahay saa sawirka si fiican u kala saartid. okay,
tilaabadaa qaadaya ila mar waa fahmi kartaa. okay markaan dhib ma lahan waa fahmi kartaan ila socda. okay meelaha marka haddii uu kasoo galo madaxa waa ka ilaaline. fadlan nagu dhiirigeliya inaad subscribe saartid gambaleelka aad furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena. waxyaalahan kaa caawinayno waa computer graphic wax laisku dhaho sida photographic, graphic designer, video graphic, web design. insha allah tacaala waxaan isku dayi doonaa wax walba aad uga baahato computer graphic inaan wax ka tusno. cilmiga waa bad, waxa waaye wax uu hal qof kaliya isku tusi kara ma ahan. la socod wanaagsan muuqaaladeena xiisaha leh. nagu soo comment karee casharada aad jeceshahay inaan ku faa'iideyno ama aan soo diyaarino. waa qiimeyn doonaa aarahdiina iyo talooyinkiina. hadda waxaa inoo jaran sawirka waxaan u jartay okay backgroundka markaasaan ugu bedelay. waxaa sameynaysaa
okay sawirkaa ku laabanaysaa waad toosinaysaa oo kaliya okay waxyaala yaraa ku jiraan marka waxyaalahaas jiraan ka bixinaynaa okay selection aan leedahay enter control z okay markaa meeshaan taagan tahay waxaan rabnaa inaan suudka soo gashano folkaa furanaynaa waxaan leedahay open okay kan logaa ka furaysaa zoom soo dheh control A dheh control Z dheh control V inta ku dheh okay inta istaaji control T aa leedahay waxaa la qabanaysaa shift iyo alt iskula qabanaya zoomka ku daraagaraynaya okay okay doora marka calaamadan tigta